qalabkan waxaa la yiraahdaa relay. Relayga waxaa loo isticmaalaa marka laba fiil la isku dhijinayo kadibna la rabo in la kala fujiyo. haddaad rabtid inaad ogaatid sida relayga uu shaqeeyo videogan sii fiirso. nalkan yariiska ayaan diminayaa oo daaraya anigoo kan isticmaalaya. haddii aad dhagaysatid waxaa maqli kartaa relayga waxa ka yeeraya markii aan firo. nalkan yariiskana waa arki karnaa meeshan ka daarmaya. hadda waxaan sameynaa gudihiisa waxa ku jiraan fiirinayna. kan haddii aan kala furo gudihiisa sample way kaanaya. meeshan waxa ku jira fiilooyin tiro badan oo duuban. dhinacna wuxuu ku dhagan yahay lugtan, dhinacna wuxuu ku dhagan yahay lugtan kale. wuxuu ku dhajiyo 5 volt inta, meelna ground, meelna 5 volt ku dhajiyo. waxa dhacaysa waxa waaye bir yar oo halkaas ku qarsoon magnetic noqonaysa. marka birtaan uu jiidaya, birtaan markuu jiido kadib waxa dhacaya waxa waaye kan saas buu sikanaya. marka waxa dhacaya waxa waaye birtan ay u jeedida hab dhaqaaqaysa, geeskan waxa xirtaa ku dhagsanaysa, intana kii dhex waaye. marka wuxuu sameynaa waxa waaye fiilada inta ku dhagsatid, fiilo kale inta ku dhagsatid, labadii fiilo markii way isku dhagayaan